بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 660 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. رواه السنن الأربعة وأحمد، والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taarikhda islaamka ay tahay 26 bishii toddobaad rajab sanadka 1443 isla markaana waafaqsan 27 bishii labaad sanadka 2022. waxaan ka cudur daaranayaa baaqashadii uu shalay baaqday cashirkeenna. arrin dacwo iyo mashquul maanu ku mashquulay, baaqashadeennana way badatay iyo cudurdaarku waad ka raalli ahaanaysaan. وظروفتهم baa keenaysa in sha allahu tacaala wixii un karaankaana waanu dadaalayna. fattaqu llah ma stadactum wey. intaa kadib waxaanu ku jiray mawduucii ku saabsanaa shacbaan iyo wamaa qiila fiihi, bishaa shacbaan iyo wixii shacbaan dhexdiisa la yidhi, ama fadliga soonka in shacbaan la soomo iyo waxyaabihii ku saabsanaa baanu ka soo baxnay. waxaanu soo maray inuu nabigu bishaa shacbaan wixii ramadaan ka soo haray bilaha ugu soom badan yahay inuu ahaan jiray. umuna caysha ay leedahay bisha oo dhan buu soomi jiray ila alqaliil, wax yar mooyaan, ama caamka bisha caamkeeda oo aqlabkeeda wuu soomi jiray. xadiidkeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay shacbaan hadduu kala barhka gaadho ha soomina wixii kala barhka ka dambeeya. xadiidka sharxiisa intayna u gelin, ida intasafa shacbaanu, shacbaan hadduu kala barhmo oo 15 uu gaadho, falaa tasuumu ha soomina xataa yakuuna ramadaan, ilaa ramadaan laga gaadho ha soomina. waa diidmo wey. xadiidkan war badan baa ku jira xadiidka, intaana sharxiisa wixiisa la gelin. waa xadiid waxaa soo saaray alimaam abu daawuud sunankiisa, tirmidi, nasaa-i, ibnu maajah iyo maaragtay tirmidi, intuba way soo saareen. imaam axmedna musnadkiisu kusoo saaray. xadiidka sixadiisa laisku haystaa. aad bay culimmada ugu hardameen xadiidka. rag fara badan oo culculus way daciifiyeen, rag badan oo culusna way saxiixiyeen oo mutaakhiriin u badan. xadiidka haddaanu wax ka taabana ragga daciifiyey, waxaa loo daciifinayaana alcala ibn cabdiraxmaan can abihi. cala ibn cabdiraxmaan inay dhahaan ba aabihii ka warinhaya, asaga la keliyoobay. ninka axaadiistu la keliyoobo maaragtay nin maaragtay sidaa u xoog badan maha. waa nin hiqa, laakiin waxa weye infiraadkiisa lama qaadanhayo dheh. saa darteed rag fara badan oo culculus ayaa xadiidka daciifiyey. waxaa ka mid a ragga daciifiyey yaxya cabdiraxmaan bin mahdi baa ka mid a, waxaa ka mid a axmed bin xambal baa ka mid a, abu zurcat araazi baa ka mid a, yaxya bin maciin baa ka mid a, alimaamu daara qutni baa ka mid a, alimaam waxaa ka mid a annasaa-i baa ka mid a, alimaam waxaa ka mid a maaragtay bayhaqi baa ka mid a, alimaamu dahabi baa ka mid a. mucaasiriintana sheekh muqbil alwaadici raxmatullaahi caleyhi baa ka mid asna wax daciifi. intaasoo dhan ba xadiidkan way daciifiyeen, dariishadii ka tuureen. mar hadduu xadiidka daciif noqdayna waxa weeyaan shacbaan waa la soomi karaa, hadduu kala barhmo iyo haddii kaleba waa la soomi karaa wey. keliya inuu nabigu caleyhi salaatu wasalaam u yihi, xadiidka wuxuu ka hor imanhayaa markii la yidhi shacbaan mar hadday kala barhmayaan la soomin, wuxuu ka hor imanaya laba xadiid oo labada xadiid maxay yihiin? axaadiidta faraha badan ee ku tusinaysa inuu nabigu shacbaan aqlabkeeda soomi jiray ama dhammaanteedba soomi jiray. hadee maaragtay shacbaan aqlabkeedu soomi jiray hadii layihahana maaragtay nis kadib inuu soomay wey. iyo xadiidkan kale dhahaya ramadaan ha kala hormarina soon hal maalin ama 2 maalmood soonkooda ha kala hormarina, bimacnaa ramadaan intaan la gaadhin hal maalin ka hor ama 2 maalmood ka hor ha soomina. taana wuu ka hor imanhayaa. idan culimada daciifisa wax hor imaasho ma noqon hayo, waa xadiidka dariishaday ka tuureen. culimo kalena xadiidka way saxiixiyeen. waxaa ka mid a imaamu tirmidi baa ka mid a, ibnu xibaan baa ka mid a, xaakim baa ka mid a, alimaamu taxaawi baa ka mid a, wain kaana qaarkood ay kasoo naqliyaan inuu raggii daciifiyey uu ku jiray. alimaam ibn cabdilbar baa ka mid a, alimaam maarata axmed shaakir baa ka mid a, maxamed axmed shaakir baa ka mid a, ama axmed maxamed shaakir baa ka mid a, sheekh alalbani baa ka mid a. intaasoo dhan iyaguna way saxiixiyeen. sheekh albani raxmatullahi caleyhi ilaa dhowr meelood buu ku saxiinayaa. saxiix jaamic sagiir oo meesha xadiidka kasoo xiganayna ah, raqamka xadiidka 397. waxaa kaloo ku saxiinaya sunan ibn maajahna wuu ku saxiinayaa
raqamka xadiidka 1651 waxaa kaloo ku saxiinaya sunan tirmidi raqamka xadiidka 738 intaas iyo keyrkoodba wuu ku saxiinaya. idan qolada daciifisay haddaan raacno war ma jiro. shacbaan dhammaanteed ama aqlabkeeda waa la soomi karaa, hadduu kala barmo na waa la soomi karaa wey. waa hadduu xadiidka qoladaa daciifisay aanu qaadano aanu xooga saar oon rajacno. ama haddii aanu qaadano qolada saxiixisay waa la jamciyaa xadiidkan iyo xadiidta kale iskama hor imanayaan baa layidhi. nahyigu wuxuu ku dhacayaa baa layidhi qof aan shacbaan 12 maaragtay niskii ka hor aan soo soomi jirin ama caado soon aan lahaan jirin oo khamiis iyo ithniin inuu soomaan dhaqan u lahaan jirin ama maalinna aan soomi jirin maalinna aan furi jirin kaa weeyaano markuu gaadho shacbaan 15keeda gaadho dhahaya si ramadaan aan ugu diyaar garoobo oon oola sii qabsado ayaan hadda soon bilaabaya. waa midkaan loo ogolayn. qof aan horaan shacbaan soo soomin, qof aan khamiis iyo ithniin soomi jirin oon caado iyo dhaqan u lahayn, qof aan dhaqankiisa maalin inuu soomo maalin afuraan ahaan jirin, qofkaas waxa weeyaan aan dhaqankaa lahayn 15 shacbaan markii la gaadhaan soon bilaabisaan soonka oola sii qabsado kaa weeyaan kaan loo ogolayn. ama qofka shacbaan niska ka hor soo soomi jiray nis kadib inuu soomana way u banaantay. qofka khamiis iyo ithniin soomi jirayna oo dhaqankiisa usa ahaana niska kadib inuu soomo way u banaantay. qof qada lagu lahaa inuu qadeeyana way u banaantay. qof dhaqankiisa uu kamid ahaa ayaamulbiid inuu soomo oo 13 iyo 14 iyo 15 inuu soomo ahaa ama 3 maalmood bishii inuu ka sooma ahaa inuu soomo markaa ayaamulbiidka ilaanay 15 ka horey gelaysaa. yani saddex maalmood inuu bishii ka sooma dhaqan u lahaa ama inuu maalin soomo maalin afuro dhaqan u lahaa kaama qabanhayo. qofkii soo soomi jiray shacbaan iyo qofkii khamiis iyo ithniin soomi jiray iyo qofka qada lagu lahaa soomahaya kaas nahyiga kuma dhacayo way u banaantay inuu soomo. laakiin qofkaan loo ogolayn waa qofkaana khamiis iyo ithniinna soo soomi jirin, soon qada aan soomaynin, shacbaan intii qaybtii horena aana soo soomi jirin inuu ka bilaabo shacbaan markuu kala barmo 15 wixii ka dambeeyaan bilaabi si aanu nafta aan oola sii qabadsiiyo soonko bisha ramadaan igu sahlanaado. waa ninkaan la ogolayn. ninkaan la ogolayn inuu soomo oo laga reebay nahyigu ninkaasuu ku dhacaya. ama inta kale kuma dhacaya. qolada xadiidka saxiixiisa haddii la raacana sidaas axaadiidta loo jamcinhayaa wax dhibaato ama le. shacbaan qaybihiisa hore 10 horo shacbaan haddaa soo soontay haddana kala barhka haddana aad ka soontay 8 kale aad ka soontay wax dhiba male. 10 baad horaan ka soo soontay gadaal dambana 10 baad ka soontay 20ka beri baa shacbaan ka soontay waa okay wey. khamiis iyo ithniin baa soomi jirtay idan kala barhkii dambe khamiista iyo ithniinta haddaa soontay dhib male. sidoo kale 3 maalmood baad bisha bil kasta ka soomi jirtay 10ka dambe aad marka shacbaan dhexaadaad ka qabatay ama 10kiisa dambe ayaa 3 beri ka soontay wax dhibaato ah male. maalina waa soomi jirtay maalina waa afuri jirtay dhaqankaada saa ahaa wax dhibaato ah male. qadaa lagu lahaa waa soomaysay wax dhiba male. waxaan la ogolayn adoon intaa midna ahayn inaad markuu shacbaan kala bartamo un inaad horay ka bilowdo oo tiraahdo waan la qabsanayaa 15 wixii ka dambeey kaasaan la ogolayn. idan sidaasaa lagu jamciyey qolada xadiidka saxiixisay haddaanu raacna sidaasaa lagu lagu jamciyey. idan xadiidku marka waa xadiid noocaasa macnihiisa. inta haddaan ka baxno waxaa imanaysa sideeduba qofku qada haddii lagu leeyahay waxaad ogaataan shacbaan waa sunno way soonkeedu. qofka qada haddii lagu leeyahay sunnana inuu soomo uu rabo qadihii intuu niyoodo iyo sunnadii nama u soo hosgelaysaa ama intuu isla niyoodo labadiiba ma u noqonaysaa. waa masale culimmadu ay isku khilaafeen. sida xooga badan ma anfacayso. maxaa yeelay cibaadadu mar haddii maqsuudu bidaatiha ay noqoto tug kastaba niyadeeda ayaa maaragtay rabtaa. haddaad soon qadla rabti inaad niyooti inaad soonti waa inaad asagii u niyooti, mid kale ma raacin karti. haddaad soon sunnaa damcad inaad niyooti waa inaad asaga marka inaad soonti waa inaad asaga u niyooti. marka inaad labadiiba intaad isku qabati ay labadiiba ku noqonayso markaa waa arrin laga fiican yahay wey. arrin markaa aana sax ahayn wey. laakiin culimmadu waxay dheheen ayaamaha la yidhi hala soomee sunnada qofka hadduu qadeeyo sunnadiina maaragtay ajirkeedu inuu wax ka hela waa suurtagal. laakiin iyadoo fuula ma helayo, iyadoo keligeed markuu soomayso ajir u helayey ma helhaye dhehen. marka sida fiican
maartay laba niyo ama laba camal oo mid kastaba niyo mustaqil in loola yimaado la rabo in la isdhexgeliyo waa arrin aana maartay laga fiican yahay waa in kaana meelaha qaarkood isdhexgelayso oo waa in kaana khilaaf haba ka jiraba hadda maalan qof janaabo maartay qabays ku waajibay maalin jumcaana ay tahay hadduu qabayskii u niyoodo maartay jumcadiina way soo hosgelaysaa dhib malahay dhan taxiyatulmasjidkii laakiin arrintaas waxay taxiyatulmasjidkii wixii ku saabsan taxiyatulmasjid masalan markaa masaajidka geshi laba ragcadood inaad tukati baa lagaa rabaa laakiin salaad farad haddaad geshi taxiyatulmasjidkiina wuu kaa gudaya laakiin masalada waxaa la yidhi waa masale ma ahayn maqsuudun lidaatiha labadaa ragcadood si khaasana loolama qastaynin waxa un la rabay ama makaanka aad soo gashay inaad wuxuun ku tukatay baa la rabay ama duxa ku tuko ama farad ku tuko inaa un salaad un ku tukatay baa lagaa rabaye shardi maaho laba ragcadood inaad tukatay baa laakiin kan cibaadadan soonka ah waa soon mucayan ah inaad soonti aad rabti oo ajri aad ka heshi kana waa mid waajib kuwa marka labadoodii inaad niyada isugu geysi arrintaa waa arrin aan daliil loo haynin saa darteed qofka raba inuu maarata qadlo soomo shacbaanka hadduu qadleeyo waa okay wey hadduu shacbaan sidiisa sunna iskaga soomana way u banaan tahay wey labadaasba way u banaan tahay laakiin inuu jamciyo arrintaa daliil looma hayo wax xoog badanna may aho inta markaanu ka gudubno xadiidka macnihiisa wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ida intasafa hadduu kala bartamo shacbaano bisha shacbaan la yihahdo falaa tasumuu hasoomina waxaa niska ka dambeeya hasoomina xataa yakuuna ramadaanu ilaa ramadaan laga gaadho ilaa ramadaan uu ka ahaado hasoomina wey idan waxaa loo diidan yahay qofkaan horaan soo soomi jirin dhaqanna ulahayn sunna ulahayn shacbaan markuu 15 noqdo wixii ka dambeeya inuu soomaan loo ogolayn waa qolada xadiidka saxiix haddaan qaadano weeyaan xadiidku waa daciif haddii la dhahana waxbaaba markaa tacaarud ma jira shacbaan wuu soomi karaa qofka ama iyagoo dhan ama aqlabkeedba wuu soomahayaa idan maantana halkaa waxaanu kusoo barannay shacbaan xadiidka kusoo arooray kala barhkiisa maarata hadduu la gaadho lama soomi karo iyo waxyaabihii kusoo arooray iyo xadiidka wixii laga yidhi iyo maarata in la soomi karo qofkii dhaqan u leh iyo soon sunna iyo soon qadaa ma lisu geyn karaa iyo wixii ku saabsan ilahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaat alculaa inuu xaqana tuso nuguna irsaaqa xaqa raacitaankiisa hal mar baan xadiidka lafdigiisa aan ku celinaya alxadiidu 660 can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ida intasafa shacbaanu falaa tasumuu xataa yakuna ramadaanu rawaahu sunan alarbaca wa axmed walxadiidu saxiix hada wasala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu